Iscasilaada Generaal Odowa diyaaradaha Turkiga oo ka baxay dagaalka iyo fadeexad dhacday xogihii ugu dambeeyay sheergaree muuqaalka warbixinta qaran news waxaan ku eegaynaa xog la xiriirta Generaal Odowa Yusuf Raage oo sababa jira awgeed dalbaday inuu iscasilo warqadii iscasilaada ayuu u geeyay Xamse Barre iyo Xasan Sheekh filla Soomaaliya oo walaac uu ka taagan yahay diyaaradaha Turkiga oo ka baxay dagaalka kadib markay maqleen iscasilaada oo ku dhawaaqay Generaal Odowa Yusuf Raage iyo fadeexad xilligan taagan Xasan Sheekh iyo xubnaha la safan oo la yaaban arinta uu ku dhaqaaqayo Odowa Yusuf Raage maxay tahay sababta xilligan ku kalifaysa generaalka inuu iscasilo dil miyuu ka baqayaa mashirqool ayaa jira xogahaas oo dhan muuqaalkan ayaan kugu wadaagaynaa marka hore si aan faahfaahinta u guda galno sheergareeya muuqaalka ku faafiya gruubyada oo la wadaaga saaxiibadeen waxaa sidoo kale naga xusuusina in leegtay sheerta muhiim ay noo tahay like la dhac muuqaalka si saaxiibo badan uu gaaro waa hagaag aan ku horeeno Generaal Odowa Yusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warqadda istiqaalada ama iscasilaada waxa uu u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre oo ku sugan labaduba filla Soomaaliya Generaal Odowa Yusuf Raage ayaa sheegay in intaan kadib shaqada uusan sii wadi karin loona magacaabo taliye cusub ciidanka xoogga dalka maadaama ay jiraan shirqoolaha lisa generaalkana loo gudbiyo xog ku aadan in la qaarijin rabo Korneel Cabdullaahi Deere oo ka mid ahaa xubnihii Fahad Yaasiin iyo Farmaajo u dhawaa ayaa sidoo kale xog uu dhawaan baahiyay waxay keentay in Generaal Odowa Yusuf Raage uu ugu dambeyn ku qasbanaado in uu diyaariyo warqadiisa istiqaalada ama iscasilaadiisa waxaase arinta la yaabka badan ahayd in Generaal Odowa Yusuf Raage uu ku yiri Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Barre xilkan maalinta baritaa cid u magacaawda anigu waan baxayaa mana sii joogayo inta markay taagan tahay Xamse iyo Xasan Sheekh ayaa ka dalbaday Odowa in 2 bil oo kaliya xilkan uu sii hayo balse Odowa Yusuf Raage ayaa ganafka ku dhuftay arintaas oo ka biyo diiday in 2 bil oo hor leh uu sii hayo taliyaha ciidanka xoogga dalka xilkiisa waxaas uu sheegay in xilligan xaaladdu ay aad u adag tahay wadanku uu wajahaya marxalad dagaal mid abaareed iyo halis walba oo cadawgu ay maleegayaan taasina waxay keentay in Generaal Odowa Yusuf Raage uu Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Barre xilligan ku qasbo in xubin kale oo dalka jooga loo magacaabo xilka taliyaha ciidanka xoogga dalka Fahad iyo Farmaajo ayaa fariin u soo diray Odowa Yusuf Raage waxayna ku yiraahdeen Odowayo isilaali waa u jeedaa sidii loo qaarijiyay qaroole adiguna waad ku soo xigtaa waxaad ka mid tahay xubnaheena ugu muhiimsanaa intaa wixii ka dambeeyay fariintii soo gaartay Odowa Yusuf Raage waxa uu ku qasbanaaday in uu iscasilaad degdeg dalbado Generaal Odowa Yusuf Raage Odowa iscasilaada uu dalbaday kadib waxaa soo baxay war weyn oo ah diyaaradihii dagaalka Turkiga inay dagaalka isaga baxeen xaaladdu ay aad u sii adkaanayso Mareykanka dhawaan laga yaabo inay iyana ku dhawaaqaan inay ka haraan dagaalka oo duqeynta ay joojiyaan waxaase arrimahaas oo dhan ay ku soo aadayaan xilli dalku uu ku jira marxalad adag dhawaan la qaarijiyay taliyihii booliiska gobolka Banaadir walow dawladdu ay sheegtay inay u aarguday oo hogaamiye sare oo al-shabaab ka tirsanaa la qaarijiyay isna iyadoo ay jiraan xogo kale ayaa haddana Generaal Odowa Yusuf Raage waxa uu baqdin weyn ka muujinayaa shirqoolo la maleegayo iyo halisa amni oo jira xogo soo gaaray oo ka yimid dhanka Turkiga ayuuna kaga baxayaa hoggaanka ciidanka Generaal Odowa Yusuf Raage geesigan qaran ayaa u muuqanaya in garabkiisa la cidleeyay waxa uuna tabashooyinkiisa u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya isagoo sheegay in xilligan uusan diyaar u ahayn in shirqool lagu qaarijiyo dhagar loo maleego ama waxyaabo la mid ah Generaal Odowa Yusuf Raage ayaana sanadihii ugu dambeeyay si wacan ugu shaqeynaya qaranka balse fadeexadda ugu weyn ayaa hadda ah in Xamse Barre iyo Xasan Sheekh Maxamuud aysan haysan cid kale oo Generaal Odowa Yusuf Raage booskiisa gali karta